haddii mashkiladu ku qabsato oo problemkana quri kuu muuqdo inaad kuba waalataabaa laga yaaba waa iyadaad indhaha iska saarta laakiin haddaad noloshii hore dib u egtay wixii dad dhintay iyo wixii dhib dhacay iyo wixii bala soo jirtay iyo waxa dad dunida kale haddaad eegta iyo waxa dad liita iyo waxa nafaysato taad way kula yaraanaysaa yani markastoo aad noloshaada nolosha bini aadam ku qiimayso haddaad maanta gajootay kugu dhegto waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo adduunkan baase aad wax la liqaba ka weyday laakiin haddaad dunida kale eegto waxa laga yaabaa dad badanoo waxay liqaan baan haynin oo iska soo kaakacay qaar kaasii liita un inaad aragto idan qofka bini aadamka ah hadduu nolosha isku qafilo oo uu soo yareeyo wax badan buu arkaya haddaad se is-ilowsiiso way kula dheeraato waad noolaan doontaa iyo saa dambaad toobadkeeni iyo barraad tukan doontaa iyo horta maanta iska sii wadaday noqoto waa waxa lagu lumo idan adduunka yaraantiisu haydiin muuqato inuu adduunkani yar yahay oo laabud ama caawa ha noqoto ama berri ha noqoto ama saa damba ha noqoto 10 sano haddaad soo jirto waa tegi aakhira ha noqoto markaa wax weyn aynu ku xisaabtanno hadday aakhira wax weyn aynu ku xisaabtanno noqoto programkeennay meel ku yeelanaysa iminka inaad adduunka shaqaysataa program baad u dejisata ardaynimo gal jaamacad ka subax waxaan samee experience soo qaado si aad shaqo fiican u hesho all this program wuxuu yaallaa adduunka saad u xoogsan lahayd waa inuu dhinaceeda kuu yaallaa aakhira saad janno u heli kari lahayd aad naar uga baxsan lahayd programkeedu waa inuu kuu yaallaa waa inaad garanaysaa waxaad tukanayso qaabka aad u tukanayso inta salaadood aad u baahan tahay waxaad sadaqadaysanayso maalin kasta acmaasha khayr kale aad qabanayso laakiin haddii waqtigaba aad garan weydo waxaad ku qabato Soomaalidu turub oonaad ku cayaarto markuu isagii baa culays kugu noqdo jaaniskii ilaahay ku siiyeyba markuu kugu noqdo isagii mid aad meel aad ku bixiso u daydaydo oo isaga lafteedii time factorkiiba kugu noqdo dhib inaad isaga isdhaafso waxaan waqtiga ku dilaabaan daydeeya markay kaa noqoto noloshiiba weyn noloshuba nimco waxay lahayd intaa yaree waa saacaadka aad neefneefsanayso noloshaad haysataa disawariskii aad haysatay jaaniska hadduu adigaba dhib kugu noqdo oo meeshaad ku buuxin lahayd baad ka fekerto iyo sidaad u geli lahayd waa dhibaato waxaan naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya waxa weeyaan war adduunkan waynu ka tegaynaa ee aan si fiican ugu noolaano inta aynu joogno aynu u joogno diinteenna iyo mabaadi'deenna iyo dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna aynu u joogno daarta dambe aakhira saynu u dhisan lahayn ha noqoto sahay uun waxaynu ka sii qaadannaa sahay uun ha noqoto waxaynu ka sii qaadannaa taas haddaynu ku dadaallo waxay taasi xadidaysaa markay caddaato meesha aynu degayno xaafadaynu degayno carruurta iskuulkaynu geynayno waxaynu shaqaysanayno waxoo dhammi hadafka weyn bay hoos imanayaan hadafkii weynaa markuu kuu cad yahay wixii ku gaadhsiinayo oo dhan baa hoos imanaya laakiin hadafkaa weynaa hadduu inaga lumo waxaan ka sokeeyo oo dhammina way lumayaan marka kelmadda aan ku celcelinaya waxay tahay xoogsada idinkula dardaarmi maayo oo wada garanaysaa iyo lacag shaqeeya iyo waxbarta iyo intaaba wada garanaysaa laakiin waxaan kula dardaarmay waxa weeye the right path aan raac jidka saxa aan raac ee ina gaadhsiinaya aakhiro ee inaga badbaadinaya naar ee janno inoo ka